قال ولا واحد جي فريق واس أي كواس أي كواي بدنا نيجي قصص mid ka mid ah sumajestiyaasha ciidamada xoogga dalka oo gacantiisa ugu cibaadeeyay ummadda Soomaaliyeed ayaa hadda ila jooga waxa uu garaarsan yahay qorihii kooxda qawaariijta al-shabaab ay halkan ku soo weerartay warbixin si walaal saaka meesha ugu maanay ayagoo sida caradii amal u badan waana alxamdulillah waa ku guuleysanay waana jibinay hubkooda hadda jididka saas ugu qaadayna ay doorka ee booshaskooda hambaagagooda kuwaana ama abisidooda beekaamadooda dhan jidkay wada daadsiin meel xun ay hadda u dambaysaa saaka مسجوا تريبك هراي سوى سيل لما ذي كربين لكن جبا كوجار تن لجما ياب إنه معنا سيد نيدو ذا إجعلت أي نقطة ما نقول الحمد لله واقول جوليسنا إذا ماذا حوج دالك يكون دبو حرين تدجان كأي إسكع بيجور كحدة قواريج على الشباب أي كوسو قاعدة دجان كمسجوا أو هستك دجمة عالدر قبل كجل جدود يولكي كحدة قواريج أهوها إن أي جبان دجان كمسجوا isla markaana ay la wareegaan xarumaha ciidamada ee halkaasi ayaa noqday kuwa aan hirgelin oo waxa ka hortagay geesiyaasha xoogga dalka waxa cashir la meelaabaan loogu dhigay deegaanka Masagawa tira qawaariij ah waxa sidoo kale lagu dilay horjoogayaal ka tirsan saraakiisha ciidamada xoogga dalka howlgalka hogaaminayay ayaa soo bandhigay hub iyo waxyaabo kale oo kooxan qawaariijta laga furtay dhulka fogfog ee howdka ayaa looga daba tagay halkaas oo firxadkooda lagu qaarijiyay waxaa hadda la sii ceysanayaa firxadka kooxda qawaariijta al-shabaab oo soo ku dayday inay soo weerarto degmada Masagawa ee gobolka Galgaduud ciidamada xoogga dalka gaar ahaan qaybta kumaandosa gorgor ayaa sii eryanaysa danka kale waxaa deegaanka Masagawa isla maanta gaaray taliyaha ciidamada lugta xoogga dalka Jaraal Maxamed Tahliil Biixi isagoo oo kormeeray goobihii lagu dagaalamay waxa uuna u mahad celiyay ciidamadii geesiyaasha ahaa ee diiday inay hirgeliyaan damicii kooxaha qawaariijta ah oo ahaa inay la wareegaan deegaanka Masagawa oo ay doonayeen inay gubaan isla markaana ay la wareegaan xarumaha halka ay ku leeyihiin ciidamada xoogga dalka qaybahooda kala duwan taliye Biixi ayaa dhiirigeliyay ciidamada waxa uu u ballan qaaday in baal dahaba lagu qori doono kooxda qawaariijta al-shabaab waa markii labaad ay ku fashilmayso weerar ay ku soo qaado deegaanka Masagawa oo hoostaga degmada Ceeldheer ee gobolka Galgaduud halkaas oo mar waliba loogu dhigo cashir lama ilaabaan ah inkastoo aysan ku haran oo yihiin kuwa maanka laga duleystay